Guddida taakulaynta abaaraha gobolka Sool ayaa deeq biyaha kala wareegay shirkadda Telesom deeqdan biyaha oo loogu talagalay dadka ay abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanada gobolka Sool. deeqdan biyaha oo gaaraysa 150 booyadood ayaa waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha shirkadda Telesom. halka waxaynu isugu nimi shirkadda Telesom laascaanood oo xamlad biyo dhaamin ah ka hirgelinaysa deegaanka laascaanood iyo agagaarkiisa taasoo ah deeqdii guud ee shirkadda Telesom waddanka oo dhan ugu deeqday ee caanka ahayd $500,000 qaybtii nagu soo aaday shirkaddu laascaanood qura ma aha soonaheena ilaa taleex wirwir xudun iyo boohoodle intaba way gaarsiisay gargaarka deeqda ah inana qaybteena ilaa dhowr boqol booyadood qiimo ah ayay soo gaarsiisay oo insha Allah waanu kaga qayb qaadanayno biyo dhaanka. qaar ka mid ah guddida taakulaynta abaaraha gobolka Sool ayaa shirkadda Telesom uga mahad celiyay deeqdan biyaha ay soo gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen. waxaa farxad weyn noo ah runtii inaanu halka kan kaga gudoono shirkadda Telesom telefoonada shirkaddaas oo runtii aan isleeyahay waxay ku soo aaday horena uga qayb qaatay maantana waxay ku soo aaday dadku ay sii jilcayaan oo araadku sii badanayo maanta halkan waxaanu kaga gudoomaynaa insha Allah ta'ala oo rabnaa galabta feeska hore lacag $40,000 oo aanu rabno in qaybta hore aanu ku dhaamino 150 booyadood oo u kala bixi doona magaalada laascaanood iyo inta markaa waxa weeyaan ay gaadho anteenada Telesom. waxaan halkan aad iyo aad ugu ducaynaynaa walaalaheena soo bixiyay waxaan leenahay barakallahu lakum fiima anfaqtum wa fiima abqaytum. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam afdalu sadaqati suqyul ma sadaqa waxa u fadli badan dadka oo biyaha laga waraabiyo ilaahayna wuxuu leeyahay wajacalna min al-maa'i kull shay'in hayyin fala yu'min. caawimada deeqda ee dadka walaalahooda ee dhibaataysan ay ugu deeqday shirkadda Telesom iyadoo aan markan kaliya ahayn horena ugu deeqday waanu ka gudoonay hadalka waxaan anigu halkan uga dirayaa baaq shirkadaha kale ee goboladan Sool Sanaag iyo Cayn ama guud ahaanba dalka ka ganacsada dadku xilliga xun baa la kala bartaa iyadoo ay jiraan qaar hore u xubixiyay ma dhamaan abaartii maantay koow tahay dad iyo duunyada noole kasta halkii uu taagnaaba isagu ka dhaqaaq waado uu biyo baahidoodu u taagan yahay. gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dir ayaa dhankiisa uga mahad celiyay shirkadda deeqdaasi waxaanu intaasi ku daray inay shirkadaha kale kaga daydaan una gargaaraan dadka walaalahooda ee abaartu saameysay. waxaan u mahad celinayaa shirkadda Telesom oo ah shirkad mataqaanaa muwaadiniina oo dad deegaanka ay leeyihiin oo ah ummad u dhalatay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo Soomaali ah kana tirsan shirkadaha ugu tunka weyn ama oran karno ku ugu waaweyn ee ka ganacsada dalka iyadoo horena u bixisay lacag $150,000 maantana bixisay lacag $500,000 aynu oran karnaa waa deeq aad u weyn oo deeq ay mataqaanaa ay bixin karto dad shacbi ka weyn taasoo ah geesinimo iyo qofku inuu ku dhiirado waxa Ilaahay siin wax ka bixiyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay miisaanka aakhir ugu daro dadkii lacagta bixiyay ee maalkooda iyo mataqaanaa juhdigooda iyo maskaxdooda ku bixiyay. Mawlid Ali Star TV laascaanood.